tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah kow ansixinta dastuurka federaalka Soomaaliya ee ku-meel gaarka ah. labo dhismaha dowladaha xubinta ka ah dowladaha federaalka badankood marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland oo iyadoo hadda 20 jirsatay ahna dowlad goboleedka ugu da'da weyn hay-adaha federaalka ee hadda jira. dastuurka federaalka ee la ansixiyey 2012 wuxuu wax weyn ka bedelay haykalkii baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa mid ka kooban markii hore hal gole laga soo bilaabo 1956 ilaa 2012 isagoo u bedelay baarlamaan ka kooban 2 gole oo kala ah golaha aqalka sare oo ka turjumaya midnimada iyo wadajirka dalka maadaama uu ugu xil saaran yahay dalka ilaalinta nidaamka federaalka Soomaaliya oo ah nidaam dowladeed oo jamhuuriyadeenu ku dhisan tahay iyo golaha shacabka kaas oo ah aqalkii labaad ee soo jireenka ah. hase ahaatee golaha aqalka sare ayaa dhismi karin oo suurtagali weysa inuu dhismo wixii ka horreeyey 2012 maadaama dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka aysan badankood dhisnayn markaas kuwaas oo ay tahay inuu ku matalo hay-adaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. wuxuuna si rasmi ah u howlgalay 28 Diseembar 2016 markaas oo xubnihiisii loo dhaariyey xubinnimada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. muddada sanadka ah golaha wuxuu yeeshay 2 kal fadhi oo midkiiba uu soconayay 4 bilood. labadaas kal fadhi waxaa u qabsoomay baarlamaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed 51 fadhi. kal fadhigii koowaad 28 fadhi, kal fadhigii labaad oo hadda soo dhammaaday 23 fadhi. kal fadhiga koowaad golaha wuxuu aada ugu mashquulay saldhigashadiisa iyo howlgelintiisa isagoo xoogga saaray hirgelinta arrimaha laga maarmaanka u ah habsami u socodka howlihiisa. waxaana ka mid ahaa howlahaas doorashada guddoonka golaha, samaynta xeeroosaadka uu goluhu ku shaqaynayo, samaynta astaanta aqalka sare lagu aqoonsado oo caawa halkan ujeedaan gadaalkayga ka muuqata. dhisidda guddi hoosaadyada golaha ee halbowlaha u ah socodsiinta shaqooyinka golaha iyo qorista iyo qaadashada shaqaalaha iyo howlwadeennada kala socodsiinaya howlaha aqalka. mudanayaal, dhammaan howlahaas u qabsoomay golaha kal fadhiga koowaad waxaa hirgeliyey guddiyo ku-meel gaar ah oo habeen iyo maalinba u shaqaynayay in goluhu u howlgalo si degdeg ah, taasoo lagu guulaystay in miro dhalkeeda aada caawa markhaati u noqotaan. markaan eegno kal fadhigii labaad ee hadda soo idlaaday waxaa u qabsooma howlo aada iyo aada u fara badan laga maarmaanna u ah dowladnimada, korjoogtaynta, xeer dejinta iyo matalaadda, isagoo adeegsanaya guddiyadiisa kuwaas oo mar walba hor keenayay fadhiga guud ee golaha si go-aan looga gaaro. howlahaasna waxaa ka mid ahaa hindisa sharciyeedyo dhowr ah kuwaas oo goluhu si taxadar leh uga baarandegay iyadoo lagu sargoynayay danaha guud ee qaranka, isagoo mid ka mid ah la meel mariyey halka kuwo kalena u madlan yihiin kal fadhiga soo socda. mudanayaal, goluhu wuxuu soo saaray qaraaro muhiim u ah socodsiinta howlaha aqalka iyo xoojinta nidaamka federaalka kuwaas oo qayb ka ah xilka aqalka. adkeynta iyo dardargelinta xiriirka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo golayaasha xeer dejinta ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo loona joogteeyo arrimaha lama huraanka u ah nidaamka federaalka.